gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye xubnaha golaha wasiirada mas'uuliyiinta kale dhalinyarada waxaan doonayaa inaan si gaar ah u xuso gudoomiye ku-xigeenka xisbiga anigoo yar iyo waxaan dhagaysan jiray suugaan waxaan xasuustaa nin cismaan gabyaaye la odhan jiray berigii dagaalka iyo jahaadka lagu jiray waxaa ku jiray tudocyo ay ka mid yihiin markii maxamed siyaad barre lala hadlayey inuu maxamediina kaahin yahay waabad moog tahaye marna kaama dheeree agtaaduu madow yahaye wuxuu mawdku kuu soo jiraa galabta waa mayle waa markii afweyne loo dardaar warinayey xisbigani waa xisbiga mujaahidiinta mujaahidka maxamed kaahin iyo muuse waa mataano wax badan bay ku mataanoobeen halgankay ku mataanoobeen filsafadda iyo aydheerka iyo mabda ay ku mataamoobeen dalka waxuqabadkiisay ku mataanoobeen aad iyo aad iyay abaal inoogu leeyihiin xisbiga kulmiye waad u soo noqoteen waxaad ugu soo noqoteen aad ku taageerteen wixii uu hore u qabtay iyo barnaamijkiisa siyaasadda tacliinta caafimaadka horumarka nabadgelyada intaaba waad ku taageerteen laakiinse xisbiga waddani waa xisbi socodbarada ninaannu saaxiib nahay baa gabay wuxuu ku daray oo muuse buur dhaab la yidhaahdaa magaciisa sheegee weli socodkii uma uu adkaan seedda bawdaduye waa xisbi socodbarada waxaad ku garanaysaa inaanay qaangaadhin waxyaabaha ay isticmaalayaan waa nimanka hoggaamiyeyaashoodii iyo mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyey intay masraxa isa soo taageen isku dayay inay dad isku diraan inay fadhaan dagaal sokeeye oo laga soo gudbay wixii laga bugsaday inay fadhaan waa nimanka isku dayayey ee aad shalay maqlayseen waa laga soo gudbay waxaa la odhan karaa waxyaabaha dhacdooyinka lama soo fago maraykanka dalalkaa ugu weyn adduunka maanta dagaal sokeeyey soo mareen qaran baanay ku noqdeen mar haddii qaran la noqdo qarannimadaa la qaataa waxaa dib looguma noqdo waxaan kaloo ka maqlayey xisbiga eedo ku saabsan qaadhaankii loo uruurinayey barakacayaasha iyo dadkii xooluhu ka baxeen haddaba waxaan sheegayaa mas-uuliyiin kalena berri way hadli doontaan oo uu ka mid yahay wasiirka diinta iyo awqaafta oo ku jira guddida lacagtii la filayey ee 10 milyan soomay xeroon ballanqaadyay ahayd 1 milyan wax ka yar iyaa soo xerooday lacagtiina way taallaa lamana cunin cidna laguma dhisayo war xishooda baan leeyahay xisbiga waddani qoqob iyo qabyaalad annagu kuma shaqayno waxaan kaga baxayaa tudocyo xunshushuuqna sabad sheegasho iyo xeebashada diida ka xishooda eexduna nabsay weli xambaartaaye xidhaar iyo ninkii caadilnimo idinla xiiseeya la xoodaansha isagaa dadkaba ku habeen xigee kaa qarannimadaada ka fakeraya ee aan idin qoqobaynin iyaa ku habeen xiga oo dadka kuu xiga annagu qabyaalad kuma shaqayno